السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى ما تسكل ولا ليال موضوع ما أنت كان لينا ولا ليال وموضوعات ياد مهمة وأنا لقرب إن مارتي آد ودقيسنه سينا مارتي فافنه كنا دقنه واقع عملنا نبدلنا ولا ليال. الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله وحليه هي إيمانك معانك سكر هذه سدح قوبط تفقدوا الحلاوة في ثلاث معانك إيمانك كر هذه سدح وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. هذه كويسانة هذا وقتنا الباب كينو يدين كحرين مركو حنا laga rabaa inaan maartay baaritaan ku sameeyno barbaarno inuu albaabka naga xiran yahay inuu albaabka noo furan yahay hadii aan macaanka ka helna saddexdan albaabku waa noo furan horaan ugu sii soconno aan dadaalno hadii uu albaabka naga xiran yahay oo macaanka aanan ka helin saddexdanna waxaana laga rabaa inaan boorka iska jafno oo maartay raadino macaanka walaalayaal. saddexda shay waa maxay? salaada ka raadiya salaada inay noo dhantaal maanta salaada iska tukanaa walaalayaal waxa ugu dambeeyo ummadan ay ka tagi doonto bari nabiga sallallahu alayhi wasallam waana waxa ugu horeeyo oo qiyaamada la iska xisaabin doono. marka salaadina ku dadaalnayana laga rabaa nabiga markuu dhimanayo waxa ugu dambeeyo ka dadaalay bay ahayd oo ka dardaarmay bay ahayd oo wuxuu yiri as-salata wa ma malakat aymanukum salata iyo maanta wax gacmihiin oo milkiyeen oo doomadii maanta marka walaalayaal waxaan laga rabaa inaan ku dadaalno salaada oo khushuucdeeda iyo asraarteeda aan maartay baaritaan ku sameeyno ku dadaal. qodobka labaad waxa weeye fi tilaawati alquraan quraanka akhrintiisa waxaan laga rabaa inaan quraanka akhrintiisa maartay aad ugu tadabburno sababtoo ah tadabbura loo soo dejiyay looma soo dejinin in la dhunkado maanta masaaxifti way boroobeen maalinka maartay quraan ay reerka akhrisanayaan baa meesha laga soo qaadaa markaas la dhunkada oo boorka laga jafaa sidaasna looma soo dejinin walaalayaal. minhaaj xayaatina noqdo la soo dejiyo quraanka lagu dhaqmo oo lagu tadabburo macnihiisa la dhuuxo waana maartay mid cusboonaanay mar walba marka ka dambe waxaad moodaa in maalinkaas uu soo degay. marka walaalayaal waxaan laga rabaa inaan tadabburka ka dhex barbaarno oo aan maartay aad ugu tadabburno macnihiisana baranno. qodobka ugu dambeeya saddexaad walaalayaal waxa weeyaan fi dhikrillah ee boona dhikrigiisa iyo xuskiisa inaan maartay macaanka ka raadino inuu noo dhadhamo anoo qafladaysan maaha walaalayaal inaan maartay aan xuska u fariisano ilaahay xuskiisa laakiin waa inaan ilaahay xuskiisa aan maartay ku tadabburnaa oo ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa ku barinaa oo ilaahay dhikrigiisa ku dadaalnaa. nabiga saxaabigii ku yiri إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. رسولك إلهي وإسلام كشرائع دي سوى فربضته وحان كدق إيشك نبي حكير صلوات ربي وسلامه عليه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عربكاو يوسك زول مد أحمد كقوين إنه يأي مد كقوين عرب مارتي ذكرك إلهي عربكاو يوسك زول إنه يأي مد كقوين ذكرك إلهي. ودادالنا ولا ليلان سيفا فينا ولا لها انقرسينا خيرك إن شاء الله.